kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonaa shirkadda Israa'iil NSO Group ayaa ka faa'iideysatay nuglaanta software-ka Apple isla markaana kooxda sirdoonka Israa'iil ee NSO ayaa ku guuleystay inay jabsadaan iPhone-ka sanadkii 2021 ku soo dhawaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka. warbixinnada ayaa sheegaya in Kawa Dream ay tahay shirkad yar oo aan caan ahayn oo soo saarta qalabka casriga ah ee lagu jabsado taleefannada shaqaalaha dawladda iyo dadka muhiimka u ah bulshada. shirkadaha Israa'iil waxay awood u yeesheen inay meel fog ka jabsadaan mobilada iPhone-iska ah sida laga soo xigtay ila wareedyo dhowr ah, taasi oo macnaheedu yahay in labada shirkadood ee kala ah NSO Group iyo Kawa Dream ay khatar gelin karaan taleefannada Apple iyadoo aysan ogeyn milkiilayaashoodu. sanadkii 2021 NSO waxay isku aragtay inay xudun u tahay fadeexadda basaasnimada caalamiga ah kadib baaritaan ay daabaceen 17 warbaahin oo caalami ah laga soo bilaabo Luulyo 18keedii. waxay shaaca ka qaadeen in software-ka shirkadda Pegasus loo isticmaalay in lagu basaaso ugu yaraan 180 saxafiyiin, sidoo kale 600 oo qof oo siyaasiyiin ah, 85 qof oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo 65 milkiilayaasha shirkadaha ee dhowr waddan. khubarada oo tan iyo sanadkii hore taxliilinayay jabsiga ama jabsashada NSO Group iyo Kawa Dream waxa ay rumaysan yihiin in labada shirkadood ay adeegsadeen hab software ah oo aad isugu dhow oo loo yaqaano gelitaanka qasabka ah ama hab kale oo la yiraahdo zero click si ay u jabsadaan taleefannada iPhone-ka ah. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, 3 ka mid ah ila wareedyadu waxay sheegeen in falanqeeyayaasha ay aaminsan yihiin in habka labada shirkadood ee wax loo jabsaday ay isku mid yihiin, sababtoo ah waxay ka faa'iideysteen dayacnaan la mid ah aaladda fariimaha degdega ah ee Apple. wakaaladdu waxay xaqiijisay inay samaysay isku dayo isdaba joog ah oo ay ku doonayso in ay ku hesho Kawa Dream si ay faallo uga bixiso waxa ayna waraaqada u dirtay maamulayaasheeda iyo milkiilayaasha shirkadda. toddobaadkii hore wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa booqday xafiiska shirkadda oo ku yaala xaafadda Tel Aviv ee Ramat Gan, cidna ma aysan ka furin albaabka. sidoo kale qareenka shirkaddu kama uusan jawaabin waraaqada isaga loo diray. afhayeen u hadlay Apple ayaa diiday inuu ka hadlo kiiska Kawa Dream ama uu sheego in Apple ay doonayso inay qaado tilaabo kasta oo ku saabsan shirkadda Israa'iil. Apple ayaa dacweysay NSO Group bishii November iyadoo ay ku eedeysay inay jebisay shuruudaha isticmaalka iyo adeegyadeeda ee khuseeya taleefanadeeda. kiisku weli waxa uu ku jiraa heerarkiisii hore ayaa lagu yiri warbixinta. afhayeen u hadashay shirkadda NSO ayaa sheegtay in shirkaddeeda aysan iskaashi la samayn Kawa Dream, laakiin waxa ay sheegtay inay sameynayaan si horumarinta habka sirdoonka ama basaasnimada caalamiga ah.